maanta maasha allah waa maalin weyn oo farxadeed waay waxaan halkan u soo fadhiistay oon idaacaddan ugu yeedhay in aan u hambalyeeyo guushii iyo horumarkii iyo dadaalkii iyo wixii weynaa ee wax aan ku tilmaamo maanan garanayn ee ka dhacay deegaankii Khaatumo inaan u hambalyeeyo yaan meeshan u soo fadhiistay magacaygu waa Waas Cabdiraxmaan Waas Khaliif waaska beelaha Kuumade maasha allah waxaa salay iyo daraad iyo maalintii ka horeysay iyo meesha ka dhacay wax aad iyo aad u weyn xagga ilaahayna ka weyn oo nabadgeliyo iyo horumar ah xagga aadamahana ka weyn oo deegaanka iyo dadkiisi iyo annaga danaynaynayba nugu weyn ummadda Soomaaliyeedna wax weyn u ahaa intooda quman ee dareenka shaqayn hayal maasha allah guushaas waxay u soo hoyatay deegaankaas Khaatumo State dowlad goboleedkaas Khaatumo State ama SSC Khaatumo State gabdhaheeda wiilasheeda jamaahiirteeda ciidamadeeda garaadadeeda nabadoonadeeda siyaasiyiinteeda oo uu u weyn yahay madaxweyne goboleedka Cabdiqaadir aad baan idin salaami waxaan idin leeyahay guuleysta waad guuleysateen hambalyana waan idin leeyahay inta waa inta hambalyada in kale waxaan rabaa inaan ka hadlo bila ka hor markii uu shirki madasha wada tashiga ka soo baxay Axmed Maxamed Islaam madaxweynihii hore Jubbaland irka waxaa qabsaday wax la yiraahdo waxaa irka qabsaday daaroodey kuwan guushaad aragtay gaadhay ee maamul goboleed buuxan noqday ee balaayadii khasbaysay khasab baan idinku goynaynaa lahaa laga ruji daarood maaha miya dadkii qeeyay dhaarta xagay u kalay xildhibaan lahaa ee odayaal lahaa ee aqoon-yahan lahaa ee gabdho lahaa ee rag lahaa xagay u kalay siyaasiyiin la may u hambalyeeyaan may la hadlaan guusha iyo barwaaqada iyo horumarka iyo waxaad aragteen dhagax dhigay ka dhacay dawladda Soomaaliya oo dhan baa intay guurtay meesha tagtay 12 wasiir iyo intaasoo agaasimaya wixii meesha ka dhacay wax aad ah maahan horeyna maamul goboleed ooga dhacay maba jirinba kolba ninkii raga wixii saa loo sameeyay ra'iisul wasaarihi dawladdiisu ay saa u sameeyeen iyo madaxweynihiisu ninkii raga waa og yahay nacasna loo sheegi maayo arinta saas ah haddaan barihi bulshada iyo miidiyaha fiirin iyagii iyo dawladdii iyo inta unta dadkii qaylada nagu wareeriyay xagay ka dhaceen away dadkii xildhibaanada Soomaaliya ka fadhin waayeen away daaroodeydii away soo wax guuleystay ee horumarka gaadhay ee intaasoo mashaariic loo geeyay soo daarood ma ninka guusha intaa la ekeenay soo ra'iisul wasaarihi beesha daarood ka soo jeeday maahay waxaa noo cadaatay inaan wax wanaag la dhahaba la rabin dad badan oo waaweyn oo magacyo leh aysa kuugu taala waa la jeeday ra'iisul wasaaruhu ha guuleysto golihiisa wasiiradii xukuumaddiisu ha guuleysteen
madaxweynaha Soomaaliya ha guuleyso khaatumo isteed ha guuleyso ilaahaygi qaadir ha way guuleysatay ammaan iyo nabadgelyo ha siiyo ismaqal iyo israac Allah ha siiyo mar labaad iyo mar saddexaad hambal yaan idan leen Soomaaliya ha guuleyso aad iyo aad kuwa ka naxayna Allah soo hanuuniyo ee wada gafuurka taagaya xidharka ku jira kuwaana Allah soo hanuuniyo inta wanaagsanna Allah guuleeyo inta kadeedan wax ka xun yihiin Allah soo hanuuniyaan leenahay ma habaarayno Allah idan barakeeyo guuleysta khaatum ilaahay idamki ra'iisul wasaaruhu ha guuleysto وليس وزيره ha guuleystay madaxweynaha Soomaaliya ha guuleystay dalkuna qof iyo cod buu aaday ninkii diidayay ninkii yeelayo dalku qof iyo cod buu aaday konton sano bay Soomaaliya afduubnay oo qabqabli iyo wax la mida oo u afduubnay afduubka waan ka baxayna waan codaynayna ninkaan necebnahayna codkaan ku ridaynaa sidii Muuse Biixi oo kale ninkaan jecel lahayna codkaan ku soo saaraynaa oo ugu yeelinayna hogaamiye kooxeed dambe u afduubnaan mayno ummadda Soomaaliyeedna waxaan leeyahay intaa fahma xuquuqdiina si aad u heshaan u oleeya doorashada qof iyo codka xuquuq baad leedihiin ileen xuquuq baad leedihiin aad iyo aad baan idiin salaami waad mahadsantihiin guuleysta ra'iisul wasaaraha aad iyo aad adeer macani waad ka soo baxday meeshii lagu waa 10 nin oo daarood Ismaaciil oo laba madaxweynayaal yihiin 8 ay yihiin ra'iisul wasaareyaal yaa meesha hortaa soo martay hal nina oo ku dhacaa laga waay wixii baa intaad xaggi iskaga kala riixday baad shab ku tiri geesinimo maanta laga bilaabo dhiirana lagu dhaha shalay jamaahiirtu waxay ku bixisay rooble xay sayidka nool maantana waxaan kuugu daraynaa ra'iisul wasaare dhiirana lagu dhaha aan kugu ogaanu dhiiranidaas aad iyo aad horeyna waan oga hadlay haddana waan ku celin aad iyo aad baad u mahadsantahay adeer macaan meeshaas wax badan baa ka soo jiijiilaha wixii oo dhan baad 24 saac ardaadiqaha kaga soo dhigtay adoo ilaahayna kaashanhayo geesinimana kaashanhayo dawladdaadana kaashanhayo